halkani waa Wadani News. hadulmin hadaad maanta awood u leedahay hadulmin maanta hadii aad awood u leedahay maxaa yeelay ninka aad dulmaysid iyo dulmiga aad samaynaysid ciribtiisa waa nadaamo iyo shalay weeyaan waad dulmaysaa waad seexanaysaa laakiin ninkii aad dulmtay wuu soo jeedaa wuu ku inkaarayaa ilaahayna wuu ma jiifo wuu soo jeedaa wuu ka aqbalayaa gantaadu kugu soo tuuraya adiguna waad seexatay la soco waxbaad maanta dulmtay nin dembi lahaa baad dayso oo aad 2 shilin xaaba adduunyo ku daysay mid miskiina ayaad booskiisii gelisay laakiin kan miskiinka ah ee aan dembiga samaynin ee xabiska kuugu jira kii daalimka ahaana aad lacag ku daysay garab ku daysay in adeernimo ku daysay qabiil ku daysay cabsi u daysay yaa waxaad ogaataa kan miskiinka ah ilaahay buu ku awood badan yahay gantaalo sun uu kuu soo tuurayaa aakhiranta la gaarin adduunku maaragtay uu kula helayaa laba waxaa la yidhi rasuul sallallahu alayhi wasallam ciqaabtooda aakhire ilaahay lama sugo bal adduunku ugu soo dedejiyaa waa caasi waalidaynka labadiisii waalid ku caasiyey iyo ninka baqiyiga daalimka ah dulmiga la samaynayo ee walaalo lagu samaynayo booliiska waxaa la yidhi in badan oo booliiska waa xaaraan quutayaal baa la yidhi waxaa la yidhi waxay qaataan lacag la yidhaahda fududayd waxaa la yidhaahdaa sida Kenya oo kale TKK baa loo bixiyey TKK toa kitu kidogo kisyar bixi buu ku leeyahay kisyar bixi albaab dhan buu ku furayaa gaari qaraxaad wadataa wuu arkayaa ruuxu ku leeyahay waayay waxyar iska bixi meesha doonta gale tuuba tahay waxbaad rabtaa inaad soo dhacdid wuxuu ku leeyahay tawakitu kidogo bixi buu ku leeyahay waxyar waxa doonta soo xadi ana kastan yara ii daran maanta joornaatigayga eega ilaahay baan ku dhaariyay amaanadii weyneed ee ilaahay saaray xaaba adduunyo xaaraan ah laga yaabay xataa inaanu calfanin adduunkan oo ka dhinto ayuu amaanadiisii ku doorsanaya aw qiyamkii marka in badan waxaa la yiraahdaa booliiska haday hagaagaan wallahi wadankan wuu istaagayaa wuu hagaagayaa laakiin booliisku inta corruption musuqmaasuq isdabamarin intuu ku jiro oo uu hurdo cid walbo wax qabato umada kale oo dhan haday heshiiso wallahi inaanu hagaagaynin xoog kaliya ee maanta wadankan badbaadin karo waa idinka waa ciidamada booliiska halka wadankan ilaahay idinku idinka yeelay idinkii waxa la rabaa inaad aad iyo aad isu ilaalisaan in kasta yar ee aad qaadanaysaan eeg arraashi buu leeyahay xabiib sallallahu alayhi wasallam arraashi wal murtashi fi an-nar kan wax bixiya ii fududeedaha saf baa lagu jira gadaal ma doonayo nidaamka inuu dhowro wuu soo ordayaa waa la isu iljibinayaa kisa jeebka loo gelinayaa dhaaf baa la leeyahay laba baabuur baa isku dhacaysa ama meel baa khalad ka dhacaya kadibna intuu soo ordo waa la iswaji garanayaa gacanta la iska salaamayaa waa la dirayaa qofkii isaga ahaa masaakiintan wax haysata ee suuqeedii joogta odageedii dhintay ama uu dayacay 10 ciyaal korsanaysa ayaa haddana la dul taagan yahay oo ma aragtay la dhibaya oo wax laga qaadaya ama meeshii laga cayrinaya waa islaantii u baahneed runtii iyo agoomihii u baahnaa in wax la taro waxa soo dhan waa adeegiini weeyaan kista yare ballaga qaatay halka maxay idin taraysaa waa sunnad cunaysaan kista yare albaabada aad ku furaysaan ee jeebka lidin gelinayo waa sidoo kale kista waa sun kista yare haddana ma aragtay marka shil uu gaaro ama meel si way noqoto ama nin khaldan oo sharcigii gafay qalloociyay sharcigii ku xadgudbay aad haddana daynaysaan war waxaasi waa sun wax macna leh ma aha waa wax cadaab ku keenaya inaan ka weynaana loo baahan yahay waxa الله أمانة وحلو باهن يهي إن أينو دكيدي أقودنو أمانة درك عادو حيرتان سيدي تايم أوصى بحيسان
siday tahay ma uga soo baxaysaan amaanada ilaahay baa idin dhiibay ilaahay ma uga run sheegaysaan ilaahay ma uga run sheegaysaan ilaahay ma uga run sheegaysaan ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo amaanadiisa ka soo bax amaanada laga soo bax waa daawe ilaahay waxaan ka baryay maalinka qiyaama maca alxabiib jannatu firdaws inuu ilaahay geeyo waxaan rabaa marka in maanta ballan aynu qaadno waynu isdulumnay idaylkeen waxaad wax ka tabanaysaan waa madaxdiinan madaxoodu cad yahay ka soo tagay reerahoodii idin dul jooga idin adeegaya diiday in ay nastaan idinkoona nasan diiday inay dhergaan idinkoona dhergin diiday in ay ledaan oo ay jiiftaan idinkoona jiifanin idin kor taagan idin hor taagan da'na ah oo idinka weyn amaanadan waa la isdulmay waxbaa la kala tabanayaa waxaan rabaa maanta halkan waa xaruntii ugu weyneed ciidamada booliiska madax iyo waad wada joogtaan idaylkiina in qalbiyada la isu xaaran doonayaa maxaa yeelay qalbiyadeenna markay hal noqdaan ayaynu wax qaban karnaa qaran u adeegi karnaa ilaahay raali gelin karnaa maanta inaynu halkan ku midowno isku cafino ilaahay ma ku raali gelinaynaa ilaahay baan ku dhaariyay inta doonaysa inay walaalkood cafiso oo ay maaragtay uurkeeda xaaddo gacmaha taagana waxaa ilaahay mahadiya in ay saraakiishii ugu horrayso wax gacmaha taagay walaa ma iscafinaysaan uurka ma isu xaaraysaan ammaanadaas si wada jir ah ma u gudanaysaan ilaahay waxaan ka bariyay qof walbo walaalkii maanta cafiya goobtanna keliya maahe ilaa uu ka dhinto cafiya uurka u xaara ilaahay waxaan ka bariyay maalinka qiyaama maca xabiib jannada inuu geeyo gacmaha ii dejiya ilaahay ha idin cafiyo uurkiina farxad ha geliyo ilaahay cayshkiina ha waasiciyo ilaahay marka hore idinka ha idin aamin yeelo xooggiina iyo awooddiina iyo maaragtaa kursigiinana ummadda ilaahay ha ku aamin yeelo kuwa ka soo baxa ammaanida allah ka yeelo kuwa shacabka u adeega allah idinka yeelo kuwa ilaahay waxaan ka bariyay dadkan dhibaataysan ee masaakiinta ah muddo culaysku saarnaa kuwa culayska ka qaada allah idinka yeelo kuwa qarannimadoodii soo celiya allah idinka yeelo wadajirkoodii soo celiya allah idinka yeelo midnimadoodii soo celiya allah idinka yeelo cizigii ummadan lahayd wuu baaba'ay sharafkeedii wuu lumay kuwa soo celiya halkani waa Wadani News gacmaha ha taagana waxaa ilaahay mahadiya in ay saraakiishii ugu horrayso wax gacmaha taagay walaa ma iscafinaysaan uurka ma isu xaaraysaan ammaanadaas si wada jir ah ma u gudanaysaan ilaahay waxaan ka bariyay qof walbo walaalkii maanta cafiya goobtanna keliya maahe ilaa uu ka dhinto cafiya uurka u xaara ilaahay waxaan ka bariyay maalinka qiyaama maca xabiib jannada inuu geeyo gacmaha ii dejiya ilaahay ha idin cafiyo uurkiina farxad ha geliyo ilaahay cayshkiina ha waasiciyo ilaahay marka hore idinka ha idin aamin yeelo xooggiina iyo awooddiina iyo maaragtaa kursigiinana ummadda ilaahay ha ku aamin yeelo kuwa ka soo baxa ammaanida allah ka yeelo kuwa shacabka u adeega allah idinka yeelo kuwa ilaahay waxaan ka bariyay dadkan dhibaataysan ee masaakiinta ah muddo culaysku saarnaa kuwa culayska ka qaada allah idinka yeelo kuwa qarannimadoodii soo celiya allah idinka yeelo wadajirkoodii soo celiya allah idinka yeelo midnimadoodii soo celiya allah idinka yeelo cizigii ummadan lahayd wuu baaba'ay kuwa ilaahay waxaan ka bariyay dadkan dhibaataysan ee masaakiinta ah muddo culaysku saarnaa kuwa culayska ka qaada allah idinka yeelo kuwa qarannimadoodii soo celiya allah idinka yeelo wadajirkoodii soo celiya allah idinka yeelo midnimadoodii soo celiya allah idinka yeelo cizigii ummadan lahayd wuu baaba'ay sharafkeedii wuu lumay kuwa soo celiya
halkani waa Wadani News.